السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين حمرا walaashin xamra maanta qof ayaa isoo weydiiyey ma idin cilmi dhaame qof wuxuu igu yiri waxaan qabaa dhiikar marka maxaan sameeyaa dawada dhiikarka ma jecli inaan qaato marka waxaan iri adigoo aan daawo qaadanin waa iska shaqayn kartaa marka arrintaasaan rabaa inaan u sheego soo gali ugu yiri dad kalena say uga faa'iideystaan anna waa jeclaystay sidaas oo kale ra'yigiisa waa ku raacay in aan u faa'iideeyo dadka kale oo Soomaaliyeedna without medication ayaad maxaan ku rahdaa dhiikarka aad yarayn kartaa runtii waxaan rabaa inaan idin sheego cudur oo dhan horta waxa weeye buurida buurnaantu waa cudur bilowgeed iyo dhamaadkeed marka baruurta lala dagaalamo marka dadka dhiikarka qaba caloosha weyn dhibaato u tahay caloosha weyn qofka hadduu calool weyn leeyahay dhiikar wuu ku dhici karaa sonkor xataa wuu ku dhici kartaa caloosha weyn waa khatar marka caloosha weyn lala dagaalamo oo maxaan ku idhaahdaa ishag hala cuno cunto runtii diet leh oo healthy ah hala cuno cunto dheelitiran hala cuno qofka dhiikarka qaba cunto diet leh weliba oo faatka uu ku yar yahay oo nafaqada kale oo dhan ay u dhammaystiran tahay cunto nafaqo leh oo dheelitiran ayaa la rabaa inuu cuno caloosh weyn waxay koos garaysaa xataa sonkoray kugu ridi kartaa marka cuntadana hala yareeyo dheregta badan ma fiicna sonkortana uma fiicna dhiikarkana uma fiicna intaa yareyn kartid dheregta badan yaree waxaa kale oo samaysaa exercise-ka aad ayuu u fiican yahay cuntada runtii oo carbohydrate-ka lehna iska yaree uma fiicna dadka dhiikarka qaba uma fiicna waxaa samaysaa exercise si aad u yarayso buuridii si aad u yarayso faadka jirkaaga ku jiray oo less u dhaho exercise samee dhin baruurta dadka qamriga caba khamriga ha joojiyaan muslinaa nahay khamri ma fiicna badanaa dadka khamriga caba caloosha aad u weynaata caloosha weyna waa idiin sheegay waa caafimaad darro number 1 sonkor iyadaa keenta dhiikar iyadaa keenta waa idiin sheegay cholesterol waxaasoo dhan waa wax isdaba socda caloosha weyna ay ka bilaabato iyo baruurta marka dadka khamriga caba ay iska yareeyaan khamriga ama hayaaba cabinba islaam baa nahay ma fiicno khamri in la cabo xaraam weeye maqdac ah ilaahay ma ogola waa waxna laga xarimay sigaarka dadka caba ha joojiyaan sigaarka dhiikarku keenaa ma fiicna kansaru dadka ku ridaa wadnuhu u xun yahay wax fiican ma aha sigaarka marka ha la iska joojiyo baan dhihi lahaa iyo khamrigaba balwad oo dhan ma fiicna la iska joojiyo waxaa kale oo yaraysaa kofiinka waxyaalaha kofiinka leh sida maxaan ku rahdaa kafeega qaxwaha ama bunka ha badsanin haddaa cabtid haddii kale haba cabin kofiin xataa shaahu kofiin buu leeyahay because haddaa badsatid ha ka yaraado kofiinka bunka iyo qaxwaha kofiinkiisa laakiin asagana kofiin buu leeyahay shaahu marka yaree ha isku badinin tan kale stress ayay leedahay dhiikarku uu leeyahay iyo buurnaantaba marka stresska yaree stresska haddaa lees dhahdid oo iska yaraysid dhiikarkina wuu kaa yaraanayaa uu kaa maxaan ku rahaa sidii hore kuma qabanayo
ama waxaa laga yaabaa meesha inaad ka saartid oo kiniinkiiba aad joojisid ayaa laga yaabaa. marka stresska ayuu yareeyaa. exerciseka ogaada. tan kale haddii dee xaaladaada ay serious tahay waxaan ku leeyahay support raadso dhakhtarka calashaan aad. dhakhtarka ha aadin kuma dhahaayo, balse without dhakhtar ayaan wiilka wuxuu yidhi dhakhtar ma rabo, mana rabo inaan kaniiniyo qaato, maxaan samayn karaa? marka intaasuu samayn karaa qofka. taas waaye hadda dhakhtar aad waxaan ku leeyahay arrintaada ay serious tahay dhakhtar ha aadin kuma dhahaayo. ma fiicno qofka inaad lugoysid. dhakhtar raadso oo support raadso. tan kale exerciseka wuxuu yareeyaa, runtii waa idiin sheegay, stressku yareeyaa oo qofka hadduu soo jimicsado wuxuu dareemayaa fresh. adigu bax soo luge, runtii maskaxda way ku daaleysaa hal meel hadday joogto uusan qofka dhaqdhaqaaq jirkiisa samaynin, maskaxdina way la fadhiisanaysaa. marka stressna wuu noqonayaa. buurnida stress ay leedahay, dhiigkarka stress buu leeyahay. runtii waxaa keenayana xanuunka adoo stress ka qaadaya oo dee ka walwalaya iyo adigii oo maxaan ku rahdaa buuran oo buurnidii ay leedahay stress. waxaa keenaya stress inay yeelato buurnida. waxaa weeye qofka buuran wuxuu noqonayaa culays, jirkiisa weyd ka weyn, culays ka weynaa fuulaaya. lafa xanuunaa ku dhaca qofka maxaan ku irahdaa isheeg buuran. wuxuu noqonayaa tiredness, murqaha xanuunaya, culaysuu noqonayaa. caajis miiran ay leedahay. marka active ma aha qofka markuu buuran yahay. marka stresska saasaa keenaya again qofka markuu buuran yahay. marka buurida halala dagaalamo soomaaliyey, hala yareeyo. at least maalintii 10 daqiiqo soo soco, bax, maskaxda ha soo aragto waxyaalo kala duwan. geedaha soo daawo, beerta tag, kusoo soco. beer haddaa helaysid, haddaadan haysanin buuro aa haysatid buurahaas kor kusoo socsoco. haddaadan buuro haysanin bax, wadada dheer iska qabso, laamiga kusoo soco. hadhowna la soo laabo, kusoo noqo, geeskeeda kusoo soco, meesha dadku maro. haddaa rabti suuqa kuu dhow lug ku tag, kusoo adeego, soo warwareeg, kusoo noqo haddana lug. marka waxaa la rabaa just inaa baruurtaas adiga aad lees dhahdid oo shiishid oo gubtid, maskaxdaadana say fresh usoo noqoto, fresh air aa usoo qaadatid, maskaxdina aad maxaan ku rahdaa waxyaabo badan ay soo aragto kala duwan. markaa guriga kusoo noqotid waxaa soo noqonaysaa adigoo fresh ah, adigoo happy ah, adigoo maxaan ku rahdaa soo daalay oo u baahan markaas nasiino. laakiin haddaa iska fadhido oo jirkaagi ay ka badato, caajiska iyo nasiinadu ay ka badato, waxaa weeye jirki uusan shaqaynaynin, dhibteeda leedahay. waxaa dheefshiidkaagi ma shaqaynayo, xataa calooshaada dheefshiidkeedii ma shaqaynayo. dee caloosha waxay dheefshiiddo waxay u kala dirtaa jirkaaga oo dhan, wadnihii, beerkii, everywhere ayay u dirtaa. qashin saar xataa ma lahaanaysid, ma xaaraysid. qofka sonkorta qaba inuu xaaro oo lees dhaho maxaan ku rahdaa saxaro ay ka timaado, asagana way fiican tahay. sonkorta waxay xaarku wuxuu yareeyaa qofka calashaan saxarada. sorry xaar haddaan dhahay ga raali ahaada. saxaro qofa dadaan garanaynaa jire. saxarada waxay yareysaa ma aragtay sonkorta badan, way lesgaraysaa, way dhintaa. sababtoo ah qashin ayaa kaa baxaya. qashinkaas waxaa raacaya sonkor. marka waxaa weeye haddaa dhididid sonkorta waad gubaysaa, dhididkii baa soo baxaya, sonkortii banaanka imaanaysaa. marka qofka bini-aadanka si u nool yahay inuu bedelo way fiican tahay. inaad janji garaysaan soomaaliya saa u nooshihiin bedela. saasaa idin leeyahay. wiilkaasna thank you baan leeyahay.